بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي كسر دوائر دلج الشو وآلا بكلا صوتان برنامج شكل الدوان قالها برنامج كسر كويد بواقته وأن مركز سوق هذا إنه بوق أنا أركين إنه مهم هاي سيدو كلنا مرة كقار مرة بدن بقى سوق هذا إنه بوق سجارة يا أصحابته نوحرا أما صاحب هذا يوتيوب كان قيتك لأنه سوق بيان بوقان عن موضوع في سوق هذا إنه وبوق أصحابته أما صاحب هذا نكون إنه يمد ورنتي بوق معنى وين كفرديو sidoo kalena aan ogahay markaas inaan anagu buugta soo xiri karin adinkuna aan qayb weyn ku leedahay ma rabo inaan ku fogaado faahfaahinta buugta toos ayaan u gali doonaa barnaamijkeena ama muuqaalkeena maanta sidoo kale inta aan muuqaalkeena maanta u galin oo ku saabsan how to become CEO muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay sideed ku noqon kartaa CEO guuleysta sida ku noqota CEO muxuu yahay waa mowduuc gaar ah barnaamijka dhexdiisa uga hadli doonaa ama af Soomaali ahaan sida ugu dhow ee loo yaqaan CEO ayaan ka hadli doonaa laakiin intaan ugu gudagelin barnaamijkeena asxaabay waxaa isku daydaa inaa videoga like badan saartaan ama intii suuragal ah sidoo kalena haddii aanan ka mid ahayn saaxiibada ku xiran Daljir Show waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirto waa safarkeena aan isku dayayn inaan wax uga ogaano macluumaadka adduunka ee macnaha ku fadhiyo gaar ahaan macluumaad ku saabsan dhaqaalaha siyaasadda maamulka hal abuurka iyo eeriyooyinka aan aaminsanahay inay dhalinyaro ahaan iyo bulsho ahaan waxtar noo leeyihiin sidoo kale barnaamijyo kala duwan aan kusoo gudbin doonaa halkan laakiin muhiimadda hadda aan xoogga saarayna waa hawshan soo koobidda buugaagta ama nuxurka buuggan aan kusoo qaadno buuggan loo yaqaan how to become CEO aynu mowduucan uga hadli doonaa haddii aad ku cusub tahay Daljir Show fadlan subscribe noo dheh sidoo kalena gambaleelka furo si uu soo gaaro muuqaalada aan halkan kusoo gudbi doono toos aynu u geli doonaa buuggeeni waxaana ka bilaabi doonaa sidii caado noo ahayd hordhaca buugga hordhac kooban oo badanaa aan kusoo qaadano nuxur muhiim ah oo aan isleenahay horta faham guud ha laga qaato buugga inta aan loo dhaadhicin gudaha hordhaca buuggan waxaa qoray qoraaga loo yaqaano Jeffrey J. Fox ayaa qoray waa qoraa caan ah buug badan oo qoray sidoo kalena buug maamulka aad u hadasho qoray hagaag how to become CEO sidee CEO ku noqon kartaa waliba CEO guuleysta sidee ku noqon kartaa marka mowduucan gudihiisa waxyaabo badan ku soo bandhigi doonaa haddii Ilaahay karaamo ma doonaysaa ayuu leeyahay Jeffrey J. Fox ma doonaysaa inaad gaarto booska ugu sarreyso ee shirkad ama urur booska ugu sarreeya ma doonaysaa inaad gaarto ma xiisaynaysaa inaad noqoto hogaamiye guuleysta sidoo kale haddii ay jawaabtaad marka haa tahay markaa wuxuu leeyahay markaa buugga la yidhaahdo how to become CEO ee qoray Jeffrey J. Fox waa mid si gaar ah ku anfacaya buuggan si gaar ah ku anfacaya buuggan wuxuu bixinayaa xeerar cadcad oo si toos ah oo qof kasta oo ka shaqeeya shirkad uu ku gaari karo boos sare si toos ah ama xeerar cadcad oo toos ayuu ifinayaa taasoo qof kasta oo shirkad ka shaqeeya ama urur ka shaqeeya uu ku gaari karo heer sare ama boos sare ku gaari kara gaar ahaan jagada loo yaqaan CEO jagada marka CEO waxaa laga soo gaabiyey Chief Executive Officer laga soo gaabiyey Chief Executive Officer marka ma rabo inaan Soomaali ahaan ku fogaado waxaa jiro ciwaan gaar ah uga hadli doono maxaa af Soomaaliga u dhow muxuu yahay sidoo kale wuxuu leeyahay waa uu ka duwan yahay buugaagta kale ee hogaaminta buuggani maadaama uu si toos ah u tilmaamayo waxa qofku samaynayo si uu ugu guuleysto jagada ugu sarreysa si uu ugu guuleysto ayuu buuggan toos uga hadlaya marka hogaaminta buuggan wuxuu qayb ka yahay buugta hogaaminta ayuu qayb ka yahay laakiin si gaar ah wuxuu tilmaamayaa mowduuca loo yaqaan CEO ama mowduuca loo yaqaan Chief Executive Officer ayuu gaar toos ugu shidaya ma ahan buug fikir ku kooban oo fikir kaliya ka hadlaya aragti kaliya buug ka hadlaya waa buug ficil iyo xeelado la tijaabiyey leh oo ka hadlaya xeelado iyo ficil la tijaabiyey ayuu buuggan ka hadlaya Jeffrey J. Fox wuxuu sharaxayaa in guusha CEO nimadu aysan ku imaanin nasiib kuma timaado sida dadka qaar aaminsan nasiibkeyga cunaya iyo howlahaas may
kuma timaado ama cilmi gaar ah oo jaamacadeed oo si gaar ah CEO-nimada loogu barto ma jirto si guud ayaa maamulka jaamacada loogu bartaa balse ay u baahan tahay kow shantan tilaabo ayay u baahan tahay kow dadaal dheeri ah qofka ka shaqaynaya shirkadaha ama booska noocaan hiigsanaya meel uu joogo dadaal dheeri ah looga baahan labo xirfado hogaamineed oo xooggan hogaaminta dariiqooyin ama sources kala duwan aad ka heli karta inaad ka barato marka adoo jaamacaddii laga yaabo inaad dhigato maamulka iyo maareynta ama inaad dhigato leadershipka inaad dhigato ayaysan keliya kugu filnayn waxa yar ee professorka ama macallin kugu sharaxa inaysan kugu filnayn laga yaabo marka xirfado hogaaminadu xooggan loo baahan yahay saddex go'aan qaadasho degdeg ah loo baahan yahay sidoo kalena sax ah arrintaas ka fiiri horena waa ugu socdan go'aan qaadasho degdeg ah oo lama rabo inaad iska masquulso ama go'aanka xilliga oo habboonaa ama xilliga loo baahnaa inaad qaado weyso sidoo kalena intaad degdegto inaad wax qaladaad samaysaan lama rabo waa sax inuu ahay waa inuu degdeg ahayo go'aan qaadashadu saxnay ahaataa sidoo kale dhaqan wanaagsan oo sumcad sare ah loo baahan qofku si uu nimada u dagaalamayo ama raba jaga sare inuu qabto oo chief executive officer ah qof waa inuu ahaado dhaqan wanaagsan sidoo kalena sumcad leh waa inuu ahayo awoodda aad ku hogaaminayso shirkadaada isla markaana aad kaga guuleysanayso tartanka suuqyada ayaa loo baahan yahay sidoo kale waxaa loo baahan yahay awood aad ku hogaaminayso shirkadda sidoo kalena isla markaana aad kaga guuleysanayso tartanka suuqyada hagaag buug wuxuu bixinayaa xeelado 75 ah uu bixinayaa oo CEO-nimada mustaqbalka ay u adeegsan karaan cafwan CEO-yada mustaqbalka ay u adeegsan karaan waa meeshan dadka qaarna ku waraan laga yaabaa CEO-gu waa eragan ka hadlayn laakiin gadaalan ka arki doonaa muxuu Soomaali eragaas u qalmo af Soomaali aniga oo eragaas ku habboon because eragan wuxuu ka yimid chief executive officer ku yimid chief executive officer era si sax u qeexay oo macna sidaas u koobno af Soomaali in maan arkin hadda haysana commentiga ugu reebta marka wuxuu leeyahay waxa muhiim ah in la ogaado in CEO-nimadu aysan ahayn oo kaliya in aad xirfad leedahay balse ay muhiim tahay in aad barato sida loo dhiso xiriirkaaga communication skills waa muhiim xirfado xiriir waa inaad samaysataa baalal waa inaad yeelataa loo adeegsado siyaasadda shirkadda si xigmad leh siyaasadaha shirkadaha ama kambaniyadu qaabka u shaqeeyana baranaya sidoo kalena shirkadaada si gaar u baranaya qaabka u shaqeey karta ama qaabka asla u shaqeey karta loona noqdo qof isku hayn karo shirkadu dad badan ay tahay laga yaabaa waxaa laga yaabaa inay leedahay material badan waxaa laga yaabaa inay xarumo badan leedahay waxaa laga yaabaa agab badan inay leedahay waxaasoo dhan la rabaa inaad isku ilaaliso maxaa la yidhaahdaa kana taxadirtaa loo baahan CEO-yada guuleysta ayuu leeyahay eragan xoog saar dadka raba inay CEO noqdaan CEO-yada guuleystay ma ahan kuwa keliya aqoonta leh waa kuwa kartida iyo dhiiranaan dheeraad ah la yimaada dhiiranaan dheeraad ah karti awood aqoon aqli badan iyo dhiiranaan xaaladaha qaar waxaa ku qasbanaanay inaad go'aan qaraar qaadato go'aan qaraar inaad qaadato kaasoo shirkadda danteeda ugu jirto okay kor waxaan ku soo sheegnay 75 xeeladood oo ka hadla laakiin annaga waxaan tilmaami doonaa buug ka tilmaami doonaa 15 xeeladood 15 xeeladood aan tilmaami doonaa waa 15 ka aan isleeyahay waa 15 ugu fiican وانا موستلينا سيدا سو يرادا 15 wuxuu yiraahdaa tibis ee CEO-nimada ayuu yiraahdaa marka 15 kaas oo asii aad uga hadlaa 15 kaas ana muhiim wuxuu leeyahay buugan wuxuu ku noqon karaa hagaa ugu wanaagsan haddii aad rabto inaad ku hormarto shaqadaada si degdeg ah labo inaad barato sida loo noqdo hogaamiye sare sida loo noqdo haddii aad rabto saddex wuxuu leeyahay waa inaad ogaataa waxyaabaha CEO-yada guuleystay ay sameeyaan CEO-yada guuleystay waxyaabaha ay sameeyaan waa inaad barataa oo waaye aragnimo badan iyo khibrado badan ay raadaysaa sidoo kale wuxuu leeyahay ka fogaato hadallada ama afwan inaad ka fogaato qaladaadka caadiga ah ee shaqaalaha iyo madaxda kale galaan macnaha waa inaad wax ka barataa qaladaadka dhacay oo lagu guul dareysto ciladaha keen waa inaad barataa si aad wax uga kororsato
وأنا مركب فوق دولة قرارات عادية شغالة إيه مدحنا كلا إيه جلان حدي هاي قف ربا إنه سي أو نقض سي إي أو إنه نقض قف ربا هاي أما الله ده هم السري أو أدونيسو إن هاد كمن نقطة dadka ugu sareeya shirkadaada ama shirkadda aad ka mid tahay haddaad rabto buuggan waa inuu noqdaa mid aad si taxaddar leh u akhrido haddii aad rabto inaad noqoto qofka ugu sareeya shirkadaada buuggan waa inuu noqdaa mid aad si taxaddar leh u akhriso sidaas ayuu hordhaca intaasaan kusoo koobin waxaan gelaynaa maxaa la yidhaha CEO muxuu yahay meesha marka Soomaaliyan ka helaynaa CEO muxuu yahay ayaan ka hadlaynaa CEO ama waxa loo yaqaan Chief Executive Officer waa madaxa ugu sareeya ee shirkad ama urur madaxa ugu sareeya ee shirkad ama urur anaga 100 magac isticmaalnaa agaasimo guud waa jira madaxweynaha shirkadda waa dhahnaa hogaamiye waa dhihi karnaa inkastoo hogaamiye aan ka maarmi karno laakiin agaasime maamule waxyaabo badan marka maamulo waa dhihi karnaa agaasimaha guud waa dhihi karnaa madaxweynena waa dhihi karnaa saddexdaas shay ayaa anaga Soomaaliga ku soo dhaweey karnaa madaxweynaha shirkadda waxa la yiraahdaa madaxweyne shirkadeed ninka shirkadda ugu sareeya macnaan ka hadlayna waa madaxa ugu sareeya ee shirkadda ama ururka ayaa la yiraahdaa CEO wuxuu mas'uul ka yahay hogaaminta meesha si fiican u faham adiga go'aami macna wuxuu mas'uul ka yahay hogaaminta go'aan qaadashada iyo guud ahaan jihaynta shirkadda mas'uulka ee qofka intaas ayuu mas'uulka yahay marka mas'uuliyadaha CEO maxaa ka mas'uuliyadaha CEO si gaar ah macna saddexdaas waa ereyin weyn mas'uuliyadaha muhiimka ah CEO muhiim wuxuu leeyahay wuxuu go'aamiyaa istiraatiijiyadda shirkadda istiraatiijiyadda ama siyaasadda iyo nidaamka iyo jihada ay shirkaddu ku socoyo go'aamiyaa wuxuu kormeeraa horumarka iyo faa'iidada shirkadda uu kormeeraa sidoo kale saddex wuxuu la shaqeeyaa madaxda kale si loo gaaro ujeedooyinka shirkadda hagaag ugu dambeyn wuxuu leeyahay wuxuu matalaa shirkadda marka ay la macaamilayso hay'adaha kale iyo dadweynaha ayuu matala asaa mas'uulka howlahaas looga dambeeya go'aanadaasna asaa qaadanaya marka CEO hadda fahmo waa CEO marka waxaan soo qaadanaynaa maamulaha guud ee shirkadda oo soo qaadanayna taasaan isticmaalaynaa dadka qaar waxay isticmaalaan meeshan kormeeraha guud isticmaala laakiin mararka qaar ma dhihi karno kormeer guud marka maamulaha guud ee shirkadda aan iska soo qaadano adiga marka go'aami CEO erga af Soomaali oo fiican oo la adeegsado CEO muxuu marka wuxuu leeyahay maamulaha guud ama CEO waa qofka ugu awoodda badan ee shirkadda wuxuuna saameyn weyn ku leeyahay guusha ama guul darrada ganacsiga saameyn weyn ku leeyahay marka ganacsiga ma dhihi karno ururada sidoo kale waa leeyahay CEO marka waxaa laga yaabaa xitaa ururka asoon ahayn ama shirkaddu aydan ahayn mid faa'iido doon ah ayaa laga yaabaa inuu CEO leeyahay marka guul darrada iyo guusha labadaas ayuu saameyn weyn ku leeyahay waxaanu galaynaa qodobada muhiimka ee buugga sida hore u soo sheegaba qodobada muhiimka waa 15 qodob buuggan wuxuu ka hadlaa si guud 75 qodob laakiin 15 qodob ayaa muhiim ah 15 qodob ayaan qalaynaa hoos aan u galaynaa mid ayaan u dul istaagaynaa 15 qodob qodobka ugu horeeya marka muxuu yahay noqo qof dhaqan iyo xirfad wanaagsan noqo qof dhaqan iyo xirfad wanaagsan arrinkan faham waliba hada CEO na noqoto ama Chief Executive Officer daarat inaan noqoto si fiican u faham noqo qof dhaqan iyo xirfad wanaagsan CEO-yadu marka ama dadka ugu sareeya shirkadaha CEO-yadu waa dad karti leh dhaqan wanaagsan leh karti leh dad awood iyo aqoon iyo xirfad iyo faham badan karti leh dhaqan wanaagsan waa leh oo si xirfadaysan ula dhaqmo dadka kale dadka ku hareeraysan kuwa shirkadda kala tirsan oo madaxda u yahay macaamiishiisa iyo dadka ku xeeran sabab kastaba hawla joogaan ama dadka banaanka joog oo macaamiisha iyo dadka la macaamilaya iyo shirkadaha kale iyo dawladda iyo waxa rabaan noqdaan ama ha noqdaan dadka oo u yahay madaxda si wanaagsan oo dhaqmado xirfadaysan si xirfadaysan caqli badan oo dhaqmo waxa muhiim ah marka koow in aad la timaado akhlaaq sare waa in aad la timaado arrinkan ku celcelinaya
meesha rabto hogaamiye ka noqo, meesha rabto maamulo ka noqo, meesha rabto madax ka noqo. qof akhlaaq wanaagsan noqo, qof akhlaaq wanaagsan oo faham badan oo caqli leh oo dadka ixtiraamto noqo, dadka ka xishooto noqo, qof aan isla weynayn noqo. marka qof akhlaaq sare leh, akhlaaq wanaagsan oo akhlaaq sare leh noqo. labo waa in aad noqoto qof la isku halayn karo, qof la isku halayn karo oo meesha ay kaa taagan tahay iyo halka ay ka joogto iyo mabda'eeda qiyamkeeda la fahmi karo, ujeedada iyo meesha u socotaan la fahmi karo noqo. oo qolada maanta kula joogto oo wax hawl kula wada ay ku saadaalin karaan, ku fahmi karaan, isku halayn qof leh. qof maalin halkaas joogto, maalin halkaas joogto, maalinna mabda'an leh, maalin inta la socoto qof kasta waxay tiraahdan na maxaa la yidhaahdaa waa sax tiraahdo maya. qof dhegaysi badan, miisaan la wax miisaanta noqo. marka waa inaad noqotaa qof isku halayn waxa dadka dhegayso, ixtiraam, faham waxay kaala hadlayaan, dabadeed go'aan qaado adiga oo aan hebel yiri aan dhahin. micnaha go'aanka waxaa ku salaysan mabaadi iyo aaraa kala duwan oo asleeda wax bay dhisayaan caqligaada iyo fahamkaada na ku salaysan. ugu dambe wuxuu leeyahay waa in aad noqotaa qof danta shirkadda ka hormariso, ama waa inaad ka hormarisaa danta shirkadda danahaaga shakhsiga ah. shirkadda waa inay muhiim ku ahaataa, muhiim waa inay ku ahaataa. danahaada shakhsiga shirkadda tiyada ka hormari, maadaama shirkaddu ay tahay waxa adiga hogaamiye u tahay, waa inaad ka hormarisaa. qodobka labaad, ha ku samayn ama ha samayn ama ha ku samayn uu leeyahay xan iyo maalayacni xafiisyada, meelaha shaqada xan iyo maalayacni iyo waxaan loo baahnay ha ku samayn. qodobka labaad, xanta iyo hadallada shaqada ka madaxa bannaan ma dhisaan sumcad wanaagsan, sumcad wanaagsan ma dhisaan. meesha hore uga hadalna sumcad wanaagsan oo loo baahan yahay, waxaan tahay madaxaad, hogaamiyaad, sumcad wanaagsan oo loo baahan yahay. marka aad rabto inaad sare u kacdo qiyam ahaan, waxaa lagaga baahan yahay ha ku milmin muranada xafiisyada ama muranada shaqada. ha ku milmin meelaha shaqada ka shaqaynayso, muranada iyo buuqa iyo waxa ka jira ha ku milmin. ka fogow shaqaalaha daciifka ee waqti lumiska ah. shaqaalo waxaa jiro afar laad saac iska sheekeeyo oo maalayacni waxaa muhiimi ka ha iyagana ka fogow. haddii kale waxaa naqanaysaa nuucooda kale. ka fikir sidii aad horumar shaqo u gaari lahayd. adigu ka fikir si aad horumar shaqo u gaari lahayd, meesha aad joogto sida uga dallicid ka fikir. halkii aad dadka kale maxaa la yidhahdaa kala hadli lahayd oo dadka iskala sheekaysa lahayd oo wax muhiim aan ahayn kala hadli lahayd, dadka halkaa kala hadli lahayd oo waqti lumi lahayd. micnaha ujeedka soo duuduub waa intaad waqti iyo ciyaar iyo maalayacni waqtigaada ku lumi lahayd, ka fikir inaad horumar shaqo samayso. qodobka saddexaad, qodobka labaad wuxuu ka hadlayaa xanta iyo hadallada macnaha aan lahayn iska daa. qodobka saddexaad wuxuu leeyahay shaqadaada ka hormari, shaqadaada ka hormari ama ku hormari reer Soomaali ahaan dadaal iyo go'aan qaadashada. dhanka dadaalka iyo dhanka go'aan qaadashada ka hormari shaqada. qof dadaal badan, go'aankeeduna cad yahay waa inay noqoto. CEO-yadu ama maamulada guud waa dad si firfircoon go'aan uga gaara arrimaha shirkadda, si firfircoon ay go'aan uga gaaraan arrimaha shirkadda. kow waa inaad go'aamo sax ah si degdeg ah u gaartaa, sida hore uga soo hadalnay. go'aamo sax ah si degdeg u gaar. waqtiga waa inuu cayinaadaa, waqtiga muhiim waayo. waxaa la yidhahdaa alwaqtu ka sayf, waqti waa si sayftoo kale, haddii aadan jaran asaa ku jaray. marka waqti ka faa'iideyso, degdegaadan ha ku salaynin go'aana inaad qaadato rabaa keliya. go'aanka la tashi, caqli, fikir, xikmad badan ha la socoto, laakiin degdeg u gaaro waqtiga beeqaan. sidoo kale waa inaad fahanto cawaaqibta go'aamada aad gaarayso, waxa ka dhalan doono adiga inay aabba ku leeyihiin waa inaad fahantaa. cawaaqibta dhibaatooyin ka imaan doona waa inaad fahansan tahay, oo go'aan xikmad iyo turid iyo maxaa la yidhaahdaa mas-uuliyad go'aan ku dhisan waa inuu noqdaa. ugu dambe wuxuu leeyahay waa inaad noqoto qof ka duwan shaqaalaha caadiga ah oo diyaar u ah go'aano adag. mararka qaar go'aano adag oo laga yaabo adiga xataa inay ku saameeyaan, dhibaato ku keenaan, laga yaabo inaad qaadato. laakiin waxaa ku shaqada marka hore focuska saaray, shaqada muhiim ah, horumarka shirkadda muhiim ah. marka wuxuu leeyahay dadka caadiga ah oo dadka meelaha iska fadhiya, dadka yaryar oo meelaha hoose jooga iyo dadka xafiisyada hoose fadhiya ku qancay, waa inaad ka duwanaato. waa inaad noqotaa qof mas-uul ah oo rabo
meesha kursiga ugu sarreeya meesha inaad fadhiisato ay noqoto. qodobka afraad noqo qof shirkadda sharaf ku leh. qof shirkadda sharaf ku leh noqo. qof shirkadda sharaf ku leh noqo. meeshaan isla fahanno qof shirkadda sharaf ku leh waa noqotaa si aad u gaarto CEO nimo ama ninka booska ugu sarreeya si aad u noqoto waa inaad ahaataa qof ay adag tahay in la bedelo. qof maalinba dhinac loo jiidanayo oo maalinba hebel iska wato waa inaad noqon. qof ay adag tahay in la bedelo waa inaad ahaataa. sidaas darteed maxaa laga baahan yahay noqo qofka ugu dadaalka badan dadka oo dadaal badan iyo energy badan bixiyo oo xitaa adoo mas-uul ah shaqo adag qabto oo dadku markaas waa ku jeclaanayaan waa ku sharfayaan waa ku ixtiraamayaan. laakiin haddii dadka aad shaqada ku disho adoona aad iska jiifto waxaa laga yaabaa in la iska kaa qariyo oo xagga laga wareego oo laisku markaas musuqmaasuq iyo qofka isku daydo xitaa shaqaalihii kaa hooseeyey inay kaa xeelaystaan. marka noqow le qofka ugu dadaalka badan shirkadda. la imow fikrado cusub la imow oo kor u qaadaya shirkadda. adaa ila mas-uula shirkado fikrado la imow. hal abuur la imow. hal abuur shirkadda kor u qaadaya la imow. 3 ka hormaray shaqadaada wax walba oo kale wax walba oo kasto ka hormaray shaqadaada muhiim u ah. qodobka shanaantaana gelin dadka qaar laga yaabaa inay dhihi doonaan maadaama hal abuur aan samaynayo maxaa shirkad maamul uga naqana ama maxaa shaqaale u naqana. arrinkaas shirkadda waa inaad isku daydaa oo aad ku dadaashaa meesha aad mas-uul ka tahay adiga inaysan kaa maarmin waa inaad ku dadaashaa. arrinkaas tusaale fiican oo cajiib aan kaga haya laakiin gadaalaan ku sheegi doona haddii aan soo xasuusto. 5 noqo hogaamiye. meeshaan muhiim waa noqo hogaamiye. ha noqonin keliya maamule keliya ha noqonin. qofka liidarka ah iyo qofka managerka farqiga u dhexeeyo. adoo manager laga rabaa inaan liidar noqoto. waxaa la yidhahdaa manager kasto liidar ama maamulo kasto hogaamiye ma noqon kariyo. laakiin hogaamiye kasto maamuluu noqon karaa. maamulo kasto hogaamiye ma noqon kariyo laakiinse hogaamiye kasto maamuluu noqon karaa. marka hogaamiye noqo laakiin ha ahaanin keliya maamule. CEO-yadu ama dadkan loo yaqaano agaasimayaasha guud maxaa la yidhahdaa maamulayaasha guud waa hogaamiye ma aha keliya maamule. dadkan nuucan laga raba inay noqdaan maamulayaal keliya ma aha. si aad u noqoto hogaamiye marka dadka kale hag una fududay waxqabadkooda. qof dadka ku adkayso qof dadka ku adag qof dadka cadaabta ha naqani. noqo qof dadka hagto oo u dhimriso ixtiraamto qofka shaqaalaha ku ama qofka hooseeya dhegaysato duruufihiisa xataa gaarka la socoto. markaas dadku waa ku sharfayaan waa ku ixtiraamayaan si daacadayna kula shaqeynaan. dadka marka hagan u noqo. ha noqonin askari dadka cadaabaha naqanin. una fududay waxqabadkooda howlahooda u fududay oo maxaa la yidhahdaa la qaba shaqada waxaa la qaban karto oo waxbar oo wax u sheeg oo waxaa dheer tahayn si degan oo dhimrin iyo ixtiraam iyo naxariis la u sheeg. sidoo kale wuxuu leeyahay dhegayso shaqaalahaaga oo dhiirigeli. mararka qaar ka dhegayso shaqada ka dhegayso iyo xitaa adigu howlaha qabanaysa xataa ka dhegayso markii aad shirar ku jirtiin ama dadka kaa hoose ay kula shaqaynayaan. ixtiraam oo dhegayso si fiican u dhegayso. waxa ay kuu sheegayaan in ay wax sax yihiin u sheeg. waxaad tirahdaa waa wanaagsan tahay si wanaagsan aad yeeshay waa sax waay. marka dhegayso shaqaalaha oo dhiirigelintu marka 2 say ahaan kartaa ama 3 ma aan dhahno. in qofka xaaladaheeda lala socdo oo la yiraahdo haye aad xataa xaaladaha gaarka ah shaqsiga ah ka wareysato. xaafadda reeraha caruurta waxyaabaha ka wareysato. markaas qofku qof ku danaynayo ku arkaa macnaha qofka shaqaalaha wuxuu ku arkaa qof ku danaynayo oo ku arkaa. sidoo kale duruufaha dhaqaalana la socdo qofka waxayna qartaa sidoo kale dhiirigelin qartaa. sidoo kale waxqabadyada ay kula qabanaysa xataa inaad mararka qaar waxyaabo ay soo jeedisa qaadatan dhiirigelin qartaa dhada si wanaagsan ay yeeshay. go'aan arrinkaas waa arrin wanaagsan waana ku shaqaynayna waa ku dhaqaaqayna macnaha dhiirigelin. wadamo wuxuu leeyahay qodobkan 5 wax ka baro CEO-yada kale wax ka baro dad kale CEO-yada ama madaxda kale wax ka baro si aad uga faa'iideysto khibradahooda si aad uga faa'iideysto. sidoo kale xeeladahoodana aad wax u barato. xeeladaha iyo go'aanada iyo
tibiska ay raacaan si ugu faa'iideysto wax ka baro weyn qodobka lixaad baro sida loo xakameeyo waqtiga sida loo xakameeyo baro haddii aad rabto inaad sare u kacdo waa inaad si fiican u maarayso waqtigaaga haddii aad rabto sare inaad u kacdo waa inaad si fiican u maarayso u leeyahay waqtigaaga marka qodobkan wuxuu leeyahay baro sida waqtiga loo xakameeyo marka haddii aad rabto qof sare u kacay inaad waqtigaada sida loo maareeyo oo si fiican u maareeyo wuxuu leeyahay iska yaray kulamada aan muhiimka ahayn madaxa tahay shaqa mas'uul ka tahay kulamada aan muhiimka ahayn iska yaray ama dadka kaa hooseeyo ama gacan yarahaada u dirso waqti u samey fikirka iyo qorsheynta kaliya xafiiska iska fadhiyo guriga isku lululin fikirka iyo hal abuurka ama qorsheynta waqti u samey ka fogow leeyahay daahitaanka shaqada meeshan anaga Soomaaliya hadaan nahay waa macallimiina ku naamay waa ku dheeraynaa ma shaqa ka daahitaanka ka fogow shaqada waqtigeeda tag ama ka hor tag qiso aan rabo inaan kaga sheekeeyo oo barnaamijkan ku saabsan jirto laakiin hadda ma rabo inaan barnaamijkan ku dhaxlabo ama waqti aan ku lumin marka shaqada ka fogow inaan ka daahdo leeyahay qodobka toddobaad wuxuu leeyahay la jaanqaad isbedelada suuqa socdo la jaanqaad kambanida ganacsiga kale marka ka shaqeynaysa isbedelada suuqa la socdo oo ha noqonin kursiga xafiiskaada inaa kaliya ka warhayso suuqana ka warhayo adoo xitaa laga yaabo in dad kaaga shaqeeyaan adigana waa inaad la socotaa ka warhayso qodobka toddobaad wuxuu leeyahay CEO-yada ama maamulayaasha guud waa dad la socda halka u socdo suuq iyo waxa cusub ee imaanayo way sii saadaaninayaan jihada suuqa maadaama ay yihiin way saadaanayaan wax la socdaan sidaas darteed raadi macluumaad cusub oo la xiriira shirkadaada ama shaqada aad ku fogaan tahay shirkadda laba wuxuu leeyahay u diyaar garow isbedel kasta oo suurtagal ah sababtoo isbedelka kiis ku noqon karo qasaaro iyo burbur ala kulmi karta adana madax oo ceebta iyo mas'uuliyadda ku imaanaysaas maadaama hore u soo sheegnay guuldarrada inay aabal leedahay CEO ama Chief Executive Officer qofka mas'uulka ah saddex xeelado cusub la imow si aad shirkadaada u sii hormariso xeelado cusub la imow kaliya suuqa shirkada isku nuuctiin kaliya waxay keentay ha keenin adigana la imow xirfado cusub hal abuur wax cusub oo unique oo dadku ugu xushaan ama lagu soo aado ama dadka aad maxaa la yiraahdaa adiga kugu dooranaya la imow dooq la imow qodobka sideed wuxuu leeyahay faham dhaqaalaha shirkadda faham maxaa loola jeedaa si aad CEO u noqoto Chief Executive Officer si aad u noqoto maamulo guud si aad u noqoto waa inaad si qoto dheer u fahantaa dhaqaalaha shirkadda baro sida shirkaddu u hesho dakhligeeda xaguu dakhligu ka soo galaa sababtoo ah maadaama markaa madax noqoto rabto dakhliga ilahaas ayaad ballaarin kartaa haddii qaladaad jiro oo ay u baahan yihiin si kale in loo hagaajiyo waa hagaaji kartaa kuwa kale cusub raadi kartaa marka waa inaad fahantaa ilaa dakhliga iska hubi in shirkaddu aanay lacag ku lumin meelo aan loo baahnayn inaysan lacag shirkaddu ku lumin iska hubi meeshan waxaan ku dhex darsanayaa waa la socotaa maalmahan madaxweyne Trump maadaama uu qabsaday xilka mar dhow Mareykanka wuxuu sameeyay billions dollars oo ku bixi jiray macaawino iyo dawlado iyo howlo kale iyo xitaa qaarkood waxyaabo aan la sheegi karin ayuu xakameeyay leeyahay sidaas ay leeyahay kulli maamulkiisa sidaas u sheegan waa joojiyay dawlado badan oo dhaqaale ka joojiyay oo Soomaaliyada inay ugu horeyso wuxuu wax la yiraahdo waxa Mareykan soo galaayo waa inay wax Mareykan wax tara ay yihiin bis maxaa wax ku bixinay marka wax meel kasta wax ku bixinay waa noota meel muhiim ah that's why adiga dawladda Mareykanka iyo shirkadaadu Mareykanka ku ah that's why wuxuu leeyahay waa inaad iska hubi in shirkadaadu ay lacag ku lumin meel aan muhiim ahayn qodobka sideed wuxuu leeyahay bara sida loo barto xisaabaadka iyo warbixinada maaliyadeed baro sida loo barto ama sida loo fahmo xisaabaadka iyo warbixinada maaliyadeed faham hagaag qodobkan sidaas uu ku sheegay qodobkan marka waxa la yiraahdaa faham dhaqaalaha shirkadda ayaa la yiraahdaa qodobka sagaalaad ee buuggeena how to become CEO qodobka sagaalaad wuxuu leeyahay noqo qof dadaal badan oo waqtigiisa qof ka faa'iideysto oo dadaal badan noqo waa qodobka sagaalaad maamulayaasha guud ama CEO-yada
guulaysta waxa ay la yimaadaan dadaal ka badan in dadka caadiga ah sameeyaan. Dadka caadiga ah, dadka ka hooseeya ama dadka levelka aan gaarin intay sameeyaan dadaal wax ka badan ay sameeyaan. kow muxuu leeyahay marka iska jir qof walba oo aad u malaynayso inuu kaa caajisinayo shaqada. qof walba isleedahay ama qof walba oo dadka ku dhow ah oo isleedahay qofkaan shaqadii kaa caajisinaya ama shaqadii waqtiga shaqadii kaa lumiya iska ilaali, iska jir. sidoo kale wuxuu leeyahay u samee shaqadaada dadaal ka badan inta aad filayso. samee dadaal ka badan shaqada darteed u samee inta isla waa samayn kartaa ka badan samee haddaad awooddo waa inaha meesha ugu dambaysa kii. wuxuu leeyahay diyaar u noqo inaad waqti badan geliso shaqada. diyaar u noqo inaad waqti badan shaqadaada geliso uu leeyahay. marka qodobka sagaal halkaas aan u gudbina. qodobka tobanaad wuxuu leeyahay baro xirfadaha hadalka iyo isgaarsiinta. meeshan waa muhiim. hogaamiye ayaa la rabaa inaad noqoto, maamulo keliya ma aha. qof hadalka xirfadda hadal ku wanaagsan oo dadka hadalka ka dhaadhici karo, dadku fahmi karaan, hadalka ka dharji kara dadka asigoon weliba waqti badan ah hadal maanta dhammaanaya inaan ku hadlo. hadal yar waxaa la yidhahdaa hadal waa inta kooban oo kaalingal ah. hadal kooban oo macnaha buuxo gudbinayo, macno dhammaystiran waa inaad qofka u dhiigtaa adigoon wax tiro badan ku daldalin. isgaarsiinta iyo xiriirka dadka aad leedahay iyo waa inaad fahantaa. CEO waa inuu leeyahay awood uu dadka wax ugu sheego isagoo ku qanci kara waxa uu rabo. awood uu dadka wax ugu sheego waa inuu leeyahay isagoo qancin kara dadka. horumari xirfadaada, horumari uu leeyahay xirfadaada hadalka iyo wax soo bandhigista. public speaking waxa la yiraahdaa wax soo bandhigista. wax soo bandhigista maxaa laga hadlayaa? hadal tiro badan maaha, xirfad hadal oo macno leh waa inaad samaysaa. laba wuxuu leeyahay baro sida loo qoro fariimo wax ku ool ah, wax ku ool oo sahlan. fariimo wax ku ool ah oo sahlan sida loo qoro baro. fariin wanaagsan oo qurxan oo la fahmi karo, xogtaada dhanna ku dhex jirto, haddana waar badan oo macno badan gudbina waa inuusan naqan. macno badan waa inuu gudbiyaa hadalkuna oo kooban. ugu dambaysa wuxuu leeyahay qodobka tobanaad marka aad hadlayso ha noqdo hadalkaadu mid gaaban. markaad hadlayso hadalkaadu ha noqdo mid gaaban, sahlan. inaad maxaa la yidhahdaa buuro soo jebisa maaha, wax ay fahmi karaan dadka kula hadlaan u sheeg. waxyaabo normal ah. qarniga 21 joognaa, qarniga 17 sheekooyinka ah intaa soo akhriska iska u sheegi wax la fahmi karo yara fudud oo la fahmi karo. sidoo kale macnaha hadalkaadu waa inuu gaabnaadaa, sax hadal sax ah yahay, sidoo kale la fahmi karo, hadal la fahmi karo inuu aado. qodobka wuxuu leeyahay dhis shabakadaada xiriirka. networking waxa la yidhahdaa samee shabakadaada xiriirka dhis. CEO-yada guulaystay waxa ay leeyihiin shabakad dad ah oo kala duwan, xiriir fiican ay leeyihiin. dadka macnaha dhan waa is yaqaaniin, si ixtiraam iyo wanaag leh weliba isu yaqaaniin. marka si wanaagsan oo dadku u dhista. si aad u dhisato xiriirkaaga ka qayb gal shirarka muhiimka ah. shirarka muhiimka joog. waa inuu la kulmo CEO-gu dad sare u kacay, macnaha dad sare u kac sameeyey oo horumar sameeyey oo aad wax ka barto. dadka maxaa la yidhahdaa sare u kacay oo horumarka sameeyey la kulan sidoo kale oo wax ka baro haddaad CEO rabto inaad noqoto. sidoo kale wuxuu leeyahay iloobin inaad la xiriirto dadka aad horay u taqaanay, saaxiibadaada iyo dadka xiriirka hore aad ku leedahay ha iloobin, ha ka tegin, xiriir la samey. marka horena samayso saaxiibo aad isleedahay wax bay kugu kordhi karaan lahaa. saaxiibo wax bay kugu kordhi karaan isleedahay, sababtoo saaxiib aan macno lahayn waxba kugu soo kordhi maayo. asaaba laga yaabaa inuu ku kiidiyo ama maxaa la yidhahdaa dhibaato kuu geysa. qodobka labaatana wuxuu leeyahay u diyaar garow fursadaha iyo wax kasta ee dhici karo. wax kasta fursadaha u diyaar garow. wax kasta oo dhici karan ogow inaan wax kasta in dhici karaan, macnaha maalin kasta fursad kuu soo taagnaan mayso. waxaa laga yaabaa in dhibaato ku timaado. marka u diyaar garow. CEO-yadu waa dad fursadaha arka, fursadaha way arkaan ka hor inta aanay lumin qiimahoodu. waqtiga ay fursaduhu qiimaha leeyihiin ayaa maxaa la yidhahdaa ayay arkaan. si aad qofkaas u noqoto, marka qofkaas si aad u noqoto oo fursadda xilligeeda u aragto
markas raadso fursad cusub ku horey suuqan markas adigu fursad raad noqo qof indheer garab ah oo la socda sida shirkadu u horumari karto shirkadu siday u horumari karto qof la socda indheer garab noqo ugu dambeys wuxuu leeyahay ka fikir wax ka baxsan shaqada caadiga ah afartan xabo oo hortaan kaliya ku fikir environment iyo bay'ada kugu hareeraysan la soco dhaqaaq badan yeelo maxaa la yiraahdaa hal abuur lahaw waxa waad sababtoo shirkaddan maanta diyarta waxa inaa weynaysa laga rabo waxa madaxuna qabtinta soo inaa weynayso ayaa laga doonay qodobka 3 iyo 10 wuxuu leeyahay qodobka 3 iyo 10 noqo qof ku xisaabtama sidoo kale na qaata qatara qof ku xisaabtama sidoo kale na qaata qatara risk taker waa inaan qaata ku xisaabtama macnaha qatarta iska qaadana laakiin ku xisaabtama CEO-gu ma aha qof cabsi badan ma aha wuxuu qaataa qatar asagoo ku xisaabtamay qatar inay tahay soo og iskana ilaalinayo horaan usoo sheegay qataraha ayaa la rabaa inaad ka dhex kalluumaysan loo baahan yahay qataraha faa'iidadu meelaha qataraha ay taallaa marka adoo ku xisaabtamayo in meeshan risk ka dhalan karo qatarta iyo iska ilaalinayo dadaal badan samaynayo taxadir badinayo ayaad qaadanaysaa baro sida loo qiimeeyo qataraha sida loo qiimeeyo baro qaado go'aano adag haddii ay shirkadda u wanaagsan yihiin go'aano adagna qaado sidoo kale wuxuu leeyahay haddii aad qalad samayso baro sababta aad u guuldaraysato guuldarrada si aad berri dariiqooyinka iyo jidadka foosha xumaayo marto oo guuldarrada ku geeyo aad uga fogaato baro sababta u guuldaraysa dhibaatada waxa keenay baro qodobka 15 ee 15 qodob ee aan ku soo qaadanayna buugan loo yaqaan how to become CEO sideed ku noqon kartaa ama sideed ku noqon CEO sidee lagu noqdaa macnaha ama qofka ugu sarreeya shirkad chief executive officer sidee lagu noqdaa qodobka 14 wuxuu leeyahay noqo qof isku kalsoon dadka kalena kalsooni sii karo qof isku kalsoon nafsiyan dadka kalena ku kalsoonaan karo qof shaqo u dirsato inaa qofka daba gasho qofkii maxaa la yiraahdaa ma aha kalsooni sii awood sii shaqayda qof laakiin marka hore qofka ka baaraanda qof aad isleedahay shaqada waa qaban kartaa u dhiib shaqada u dhiib marka wuxuu leeyahay qof isku kalsoon noqo dadkana kalsooni sii karo naftaada waa inaad kalsoonaado marka hore sababta qofku kalsooni ma sii kartid haddii aad adigu naftaada kalsoonayn CEO-yada guulaysta waa dad leh kalsooni buuxda si aad kalsooni buuxda u yeelato wuxuu leeyahay diyaar garow mar kasto maxaa yeelay diyaar garowgu wuxuu ku siiyaa kalsooni marka qof aysan waxba dhulka oolin noqo oo mar kasto heegan ah qatar faa'iido guuldarro khasaaro buuq dhibaato qof heegan ugu jirta noqo ha ogolaanin cabsi inay ka hor istaagto horumarkaaga cabsi inay ka hor istaagto iska taker waxaa loo leeyahay waxaa waaye cabsida faraha baa iska yaray meel kastana isku tuuraya taas wayna ogaataa sababtoo meel kasta isku tuurto qatara badan aad qaadan beexad ah marka qatarta adoo ku xisaabtamaayo oo hubkeeda iyo howlaheeda u qaadanayo taxadirkeeda qaado laakiin cabsiiska hor istaaga horumarkaaga xirfadahaaga iyo waaye aragnimadaada horumari si aad u dareento inaad mudan tahay boos sare meel sare inaad gaari karto si u dareento kalsooni nafeed dhis qodobka ugu dambeeya 15 wuxuu leeyahay iska ilaali cadowgaada shirkadda kula jooga iska ilaali hadda ka hor barnaamijkan sameynaya barnaamijkaas qayb ahaan uga hadlay dadku waa hareeraysan jiro oo qaarkoodna cadow ku yihiin qaarkoodna naftaada iyo naftooda cadow ku ahaa jiro shaqaalaha qaarkood waa kuwa la dagaalama dadka hanka sare la dagaalama waxaa la yiraahdaa mugudbayaal la yiraahdaa waxba ma tarto wax ma tara iyagu qof kastana jilaafi u dhigaa sidaa darteed waa inaad ogaataa cadowgaada xafiiska ama aad la shaqaysaan cadowga xafiis kula jooga ama aad la shaqaysaan dadka ka xun horumarkaaga ka fogo horumarkaagana ha uga warrami macnaha waxa aad samaynayso ha u sheegi iyo meesha wax kuma leh ha u sheegi sababtoo ah waa ku xasdayn xaasidin wuxuu leeyahay markaad guulaysato ha noqon dadka u faana oo nacayb abuurta ama abuura ama soo jiita nacayb oo soo jiita markaad guulaysato horta ilaahay ku shukri ilaahay guushan ku gaarsiiyey dadkana maxaa la yiraahdaa dadka kugu dhadhawo ku farxayo waxaa tirahdaa alxamdulillah meeshaan gaara dheh
qofka isleeda meesha aad garto uga faa'iiday oo saaxiibka ama dee qofka shaqo wadaagta dadka tiin uga faa'iiday soo dhaweyso fursad si ha ka carabin waa in aad ixtiraam samaysata iyo sharaf iyo qiimeyn iyo jacayl waa in abuurata ugu dambeyn marka wuxuu leeyahay ugu dambeyn hubi in dadku kuu arkaan qof sharaf leh hubi dadku inay qof sharaf leh kuu arkaan oo ixtiraam ku siiyaan aysan dadku kaa baqin kuna xamanin kuna necbaanin qof sharaf loo qiimo leh 15 qodob halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qodobada aan ku dari lahaa marka buugaan laba qodob ayaan buugaan anigu ku daray marka haddaa u aragta labadaas qodob inay laba qodob muhiim meesha hoose ugu soo qor insha allah inay kuwa faa'iido leh waxtar leh yihiin qodobka 15 qodob waaye 17 uguma dhigin 16 uguma dhigin laakiin kow iyo laban ku daray kow marka maxaa qodobkan kooda waa diiwaankaaga ha iloobin diiwaankaaga ha iloobin maxaa ula jeeda ogow maskaxdu waa warshad mar kasta oo aad howl geliso maskaxdaada si degdeg ayay kugu howl gashaa si aad wax soo saarkeed uga faa'iideysto ha dayacin marka maxaa samaynaya marka buug yare ama diiwaanka mobilkaada markasta sido labadaas ilooba midkood fakarka iyo fursadaha maskaxdu kuu tilmaamayso diiwaan geli si aad markaad firaaqo hesho aad u falanqayso oo wixii aad qoratay markaad fariisato aad u tiraahday wixii dal igu soo dhaca maskaxda maxaan qorta maanta ugu dambeyn ha fududaysan waxyaabaha yaryar ee maskaxdaada kuu sheegayso waxyaabaha kugu soo dhacdhacaya fududaysan waayo aragti kasta meel yar ayay ka bilaabataa aragti kasto meel yar ayay ka iba furataa meeshaas yar ayaa dadku raacaan kabacdina ka faa'iidaystaan qodobka labaad wuxuu ka hadlayaa weligaa cidnaha lumin qodobka labaad qodobadan kusoo daray wuxuu leeyahay weligaa cidnaha lumin qof kasta oo hadda ka mid ah saaxiibada ha u lumin saaxiibada qof kasta oo ka mid ah ama dadka ugu xiran oo communication ama kala dhex xiriir ha u lumin kow ima qancin ama isku dabeecad manihi iyo wixii lamid ha u lumin qofkan ima qancin ma jeclaysan isku dabeecad manihi isma fahmi karna ha u lumin waayo kuma qasbanid keliya inaad hesho qof ugu habboon dadka qofka ugu habboon inaad hesho kuma qasbanid inaad heli karin laga yaabaa sidoo kale way iga aqli badan tahay way iga aqoon badan tahay ama islama jaan qaadi karna qofka ha u lumin qofkan way iga aqli badan tahay way iga aqoon badan tahay way iga aqli yarta maya waxna sidoo kale waa qalbi weyn dadka xoogaa yara aqliga ama ma karti badno ha u lumin maxaa yeelay ilaahay cid kasta waxa uu u hibeeyey rabbi subxaanahu wa tacaala cid kasta waxa uu u hibeeyey ee inta la siiyey uga kaaftoon adiga inta qofkaas ay tahay uga faa'iideyso u kala faa'iideysta inahaas aan kor kusoo xusnay iyo ina kale oo badan waxa aad ku weyn kartaa qof aadan muhiim u arkayn markaas qof aadan muhiim u arkayn waa ku weyn kartaa laakiin mar aadan waxba ka qaban karin ama ay aragta dhankaada xun ayaad dareemi doontaa muhiimadda qofkaas qofka muhiimadda xilligaasaad dareemi kartaa qofkii aan kuu soo laaban karin ayaad dareemi doontaa sidoo kale waxaa hore loo yiri ciddii doqonkeeda diidda ama ciddii doqonkeeda iska cayrisan burisa kuwa doqomadooda wataa dili doona ciddii doqonkeeda diidda kuwa doqomadooda wato ayaa dili doona marka doqonkaada iyo qof kasta oo kugu hareeraysan doqon ma ku dhahayn laakiin qof kasta oo kugu hareeraysan wado wax ka tegin waxaan soo gaarnay buugga loo yaqaan how to become CEO gunaanadka buugga ayaan soo gaarnay buugga how to become CEO ee uu qoray Jeffrey J. Fox ninka loo yaqaan wuxuu si cad u muujinayaa in CEO nimada ama maamulaha guud aysan ahayn mid loo dhashay maya dhaxal maaha balse ay tahay mid la kasbado mid la barto oo maxaa la yidhahdaa khibrad ahaan iyo aqoon ahaan loo kasbado hogaamiyayaasha sare ee guulaysta waa kuwa la yimaada dadaal dheeraad ah dadaal badan la yimaada xirfad go'aan qaadashay la yimaada dad go'aan laho meel lagu hagaago waa karti hogaamineedna waa leeyahay qof dadka hogaamin karto iyo sumcad wanaagsan intaas waa inaad samaystaa dadaal dheeraad waa samayn kartaa waa wax cid kasta samayn karto xirfad go'aan qaadashad yeelan kartaa waa barasho iyo dee xoogaa inaad naftaada adkaysi u baahan tahay karti hogaamineed waa bara kartaa waana isku dayi kartaa in ilaahay xoogaa yara ku dhaliyana waa ku wanaagsan taho dadka
dad u dhashaa jira hogaaminta ku wanaagsan barashana waa leedahay laakiin labadooda in ilaahay ku siiyay ku wanaagsanta iyo sumcad wanaagsanna abuur buuggu wuxuu ku celcelinayaa in qofka rabo inuu gaaro jagada ugu sarreysa ee shirkad uu ka shaqeeyo shirkadu u shaqeeyo tusaale ama ka shaqeeyo uusan noqon mid keliya sugo dallacaad meel ka shaqeysa xafiisaad joogta dadaal dheeriya iyo karti iyo hufnaan iyo shaqo dheeriya iyo ismuujin iyo masameynaysa waxaa isla dallaca iska dhowr sano kadib lagu dallacay 30 sano 40 sano kugu qaadanaysa inaad gudoomiye ku-xigeenka shirkadda noqoto ama maamul ku-xigeenka shirkadda marka waxaa lagaga baahan yahay dadaal dheeraad ah xirfad go'aan qaadasho karti hogaamineed iyo sumcad wanaagsan intaas yeelo dadaal badan samee marka dadaalkaas uu gaarsiin doono boos marka buug wuxuu ku celcelinayaa qofka raba inuu gaaro jagada ugu sarreysa ee shirkad uu ka shaqeeyo shirkadda uu ka shaqeeyo uusan noqon mid kaliya sugo dallacaad balse uu naftiisa diyaariyo shaqadaada ka dhig mid aan la bedeli karin maxaa ula jeedaa qof shaqada muhiim u ah noqo laakiin qof ay shaqadu muhiim u tahay noqon okay sameyn go'aamo adag sameyn qaado qof shaqada loo diro go'aan adag ka qaadanayso wax soo kordhi karto oo wax kala wadayso aan noqon dhis shabakadaada xiriirka sidoo kale dadka linkiyo fiican samayso xitaa dadka asla shaqeysan linkiyo fiican ka samayso la soco dhaqaalaha shirkadda sidoo kale dhaqaalaha shirkadda waa in la socoto oo had iyo jeer ka horreey shaqaalaha kale haddii kale dee ninka u horreeya unbaa naqanaya madaxda naqanaya marka ka horreey Jeffrey J. Fox wuxuu leeyahay CEO-yada guuleysta waa kuwa aan ka baqin mas'uuliyadda loo diray qaataan haddii guul dareysana guul daro waa qaataan haddii guuleysana guushooda qaataan diyaar waa inay si caqli gal ah u maareeyaan shaqadooda kana dheereeya shaqaalaha kale kalena waa ina ka dheereysaa haddaba haddii aad rabto inaad CEO noqoto waa inaad qaadataa xeeladaha iyo casharada buuggan ku jira waa inaad qaadataa 15ka qodoban ka soo sheekayna aad u dhuux aadna ka dhigtaa kuwa aad noloshaa shaqo ku dabaqdo qodobada aan ka soo hadalnay CEO-nimada lama sugo ee waa la kasbadaa dallacaad iyo waxaan rabaa in maamul laga dhigo iyo tuugmo iyo laguma sugay isi soo bandhig ismooji si aad u noqoto CEO waxaan ku dhiirigelinayaa dadka shirkadaha ka shaqeeya raba inay shirkadaha madaxda ka noqdaan qodobadan ay aad u dhuuxaan buuggan loo yaqaan How to Become CEO ee u qoran ninka loo yaqaan Jeffrey J. Foxna ay aad u akhriyaan macluumaad badan iyo aqoon badan ay kasbadaan dadaal fiican ay sameeyaan hogaamintooda ay dhisaan xiriirada isgaarsiinta xiriirada maxaa la yiraahdaa public speaking ama xiriirada hadalka ay bartaan xigmado badanna ay fahmaan xigmadaha nolosha ee hogaaminta iyo shaqada iyo hal abuur ku saabsan waa inaad xoog saarta oo xigmado badan aruursata oo xitaa markaa dadka la hadlayso dadka aad wax macno leh inay kaa dhadhamayaan waa inaad dadku u sheegtaan marka waxaan ku saacidayaa kaliya ku raacinayaa buuggan dadaalkaada adiga wax kaa dhigi karo dadaalkaada ayaa wax kaa dhigi karo shaqadaada haddii ay tahay shaqa u aragto shaqo wanaagsan oo naftaada ay ku qanacsan tahay waqti geli jeclow ku dadaal waxaa ka fikirtaa kaliya shaqadaas inay adiga kuu baahnaato shaqada in adiga kuu baahnaato aysan kaa maarmin heerkaas gaarsii markaas qolo kasta waxay ku qasban inay maxaa la yidhahdaa kusoo jiitaan waxaan kusoo gabagabeynayaa haddaalay hore waxaan kusoo sheegay wax yaroo qisaan raacsiinay buuga hore kusoo sheekeynaa jiro oo laga qoray Steve Jobs waa garanaysaan waa ninkii CEO of Apple waxa jiray ama ninka Apple aasaasay la yiraahdaa nin loo yaqaan Steve Wozniak oo malayn oo ahay ayaa saaxiibkiisa la aasaasay shirkadda ragi waxay ahaayeen marka hore hawsha bilaabay Steve Jobs waa laga ceyriyay shirkadda sida ogtiin laakiin shirkadda Apple Steve u baahnaato waa ku qasbanaatay in Steve loo soo celiyo وانا اكتب 1997 امالي 86 la cayri amalayna 97 Apple oo dhulka gashay ee burbur qarka u saarnaa la soo celiyay markaas oo cirkaas geeyay marka adiga shaqada inay adiga ku raadsato adiga ku soo raadsato ku qasbanaato halkii adigu raadin lahayd kaliya laakiin abuuro marka buuggan loo yaqaan How to Become CEO halkaas aan soo gabagabeynayna أصحابي
حرجينا المقال كان وحنا كفايدين sidoo kale waxaan ka codsanayaa inaan muuqaalka like ta saartaan sidoo kalena haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biirto to show aad safarka aan waxaan ku kala faa'iideysanayno aad ka mid noqoto sidoo kalena waxaan ka codsanayaa subscribe saartaan gabalka furataan si muuqaalada soo gaaraan sidoo kalena aad sii share gareysaan ama aad gaarsiisaan saaxiibada muuqaalada intaan muuqaalkan ama buuggan buug lamid aan kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo iyo nooli kulantay